أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على النبي سيدنا محمد وحوي دورت إلهي بان مهدله وعانو مهدنقينا إلهي حقها إلهي هلكا وحي أن أوغين كريدي هادنا أمديسي كبدباديي انتو مرقورة اسكوكو كاني روبب إيا الدبايلو إيا الدادد إيا بد إيا هنقد إيا قرية دمية oo jiingaduhu yaacayaan haddana rabbigii ka badbaadiyey ee umadiisa badbaadiyey ayaanu mahadnaqaynaa intaa ka bacdi waxaanu mahadnaqaynaa imaatikiina adjidka dheer soo marteenna waanu idinka mahadnaqaynaa waxa weeye imaatikiinan maanta kuwaanu aad ugu faraxsanahay ayaabuha waayo waxa weeye bili aadmigu waxa weeye dee marna inay dhibtooda sheegtaan marna bili'aadmiga u soo gurmada wixii loo taray inay sheegtaan ayaa dee wanaagsan waxa maanta imaatikiina TV-ga qaranka imaatikiisa aanu ugu jecel lahay waxaanu rabnaa waxqabadkii dawladda Soomaaliland ay ka qabatay degmadan in aanu cadayno ayaanu idinku yeernay sidaad ogtihiin dee degmadan wixii ka dhacay waad ogeydeen hadduu ka dhacayna dawladda Soomaaliland tallaabo aanan dawladaha waaweyni intooda badan qaadin bay qaaday hal maalin markuu dhacay maalintii dambe diyaaradaha isweydaartay oo madaxweyne Muuse Bixi iyo madaxweyne ku-xigeen Cabdiraxmaan Saylici ay isweydaaranayeen way tira beelan diyaaradu حاجة جبوتي حاجة هرجيسة دكاي دونان بهاكا كيناني way tira beeleen ما soo arag waa soo joogay dawladii aadan cadde waa soo joogay tii Cabdirashiid waa soo joogay tii Siyaad Barre ee dawladaha waaweyn la aqoonsay ee Soomaali weynaha dalkana wax waliba way ka dhaceen gurmadka ay maanta sameeyeen ee dawladda Soomaaliland ee hogaaminayaan Muuse Bixi Cabdiraxmaan Saylici ay sameeyeen ma soo aragde hore ma soo arag maadaama ay tahay dee Soomaalidu waxay tiraahdaa gabay nin malaha reer Nairobi bari u tiriyay waxba yaanu xoolanaysiin waxba yaanu xeerkay imarin xoolanaysiin xashaalin leelin limi ka xistiyay xumihi waa yaab wixii ay qabteen libiteedina sheegnaa de garanay ugana mahad celino ayaan garanay waad arkidee iskoolada maanta aynu joognaay dhammaantood way baaba'een quruxda ka muuqata waad arki doontiin dhakhtarka aynu tagi doonaa dhammaantii wuu baaba'ay quruxda ka muuqatana waad arki doontiin biyuhu siday noqdeen waad aragteen maantana waa kuwa socda ee la gelinaya tuumbooyinkii ay wax waliba isdul yaalaan intaaba waxaa ka horeeya markay wax dhaceen waxa la laba hinjiyaba waa hunguri kii horreyn jiray waxa isla maalintii ay wax dhaceen maalintii ku xigtayba dawladda Soomaaliland ay ummadda la soo gaadhay dhiig joojintii oo ahayd waxay cunayeen waxay xidhanayeen waxay goglanayeen waxay huwanayeen weelkay wax ku cunayeen iyo daawooyinkii intaba way la soo gaadhay waa maalintii ku xigtay may qarcina sidii bay u socotaa ilaa maanta waxa kale oo dhiig joojinta ahaa inta booyada kareysna waad aragteen waana arki dootiin ilaa maanta socda ee aan laga caajisin wali in dawladdu ka caajisin ilaahay baa mahad leh laakiin waa dawlad nasteexo waa dawlad garanaysa ummadeeda dibta ku dhacday la qaybsanaysa inta dibta iyo dhibaatadu taagan tahay la qaybsanaysa ma waan ka daba imanaynaa ma qofku waxa uu taray hadaan la sheegin waa dhibaato duqayntii iga horeysay maamulkii iyo hooja rag iga horeeyay baa dhameeyay arrinka mahad waxaan u celinaynaa dawladda Soomaaliland madaxweyne ku-xigeenkan mahad u celinaynaa dhibaato way dhacday dhibaato foolxun baa dhacday dhibashiya dhaawac iyo dubis makaanba intaba way yeelatay kolley dawladdu si fiican bay u soo gurmatay way noo timidnay diyaaraday noogu timidnay
ku Jabuuti ka soo baxay iyo ku Soomaaliland ka yimid ba intaba madaxweyne ku xigeenku ay wataan intuba way noo yimaadeen mahad baan u celinaynaa wixii gargaara ilaa dharaartii dhibaatadaas dhacday iyo waqtiga aan joogno haddii cunno tahay iyo haddii waxqabad tahay ba arrinka dawladda uu nagu socday dhulkii amba wax lagu baranayay amba waarka wax la dhigayay baa dhismahooga si fiican u soo baxay degmada jeegadii iyo wixii laga dumayna waa naloo kiciyey intaaba waxaan ugu mahadnaqaynaa dowladda Soomaaliland madaxweyne ku xigeenkaan ugu mahadnaqaynaa أولاً إلهي سبحانه وتعالى ينو مهد علينا هالكن نقول سو كل مية مهد إلهي كسكو وحنو مهد علينا صدا وضي اسماء بصوش شيء دولة قرن كسوماليلاند جمهورية سوماليلاند من مدحوينه هيجا مدحوين كحوين كيجا يو لما أنت تبع شعب كيجا بقى رنت أنا هدان كسو كوبر موضوع كله تمر نك هذليا وحاجة وحبر الشرع دبعتي سو قاردي dugsiyada waayo xildhibaanadii baa jooga dad fara badan baa jooga waxyaabo kale laga warbixin doonaa laakiin kaliya waxaan ka hadlayaa maadaama gudoomiyaha waxbarashada degmada aan ahay waxbarashada dhibtii soo gaadhay imika waxaan taaganahay waa dugsiga sare xarunta Lughaya gebigiisu u burbursanaa baahdo dusha oo dhan iyo gidaaradiisuba baabay ahaayeen maantana waa ka qurux badan ee indhihiina ku arkaysaan dhammaystiran sidiisii lagu soo celiyay sidoo kale 12 dugsi hoose dhexe 12 dugsi hoose dhexe degmada kamida ayay duufaanta sagar baabiisay oo kuwa ay dhulka la sintay oo dumisay iyo kuwa waxa weynay saqafka iyo inta dusha ka qaaday isku jiray 12 ka dugsi waxay ahaayeen dugsiga kale xarunta imka xagan dambe naga xige hoose dhexe dugsiga ida cadays dugsiga hadayta dugsiga cabdi geedi dugsiga kalawle dugsiga garaaca dugsiga ballayga dugsiga gargaara dugsiga tuurka iyo dugsiga waraqa dhigta 12 dugsi oo yaani noocaas kuwa kale oo dhaawacay ay gaarsiiso degmada kamida oo ay iyaguna jiray dhammaanba maanta dugsiyadii runtii gurmad xoog laga galay dib baa loo wada dhisay halkan kulli waxaan horta marka ugu horeysay waxaan uga mahadnaqay Ilaahay baan uga mahadnaqaynaa mar labaad dawladda Soomaaliland baan uga mahadnaqaya kulli waxa weey dawladda Soomaaliland xisbiga kulmiye hogaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Saylici waxaan leenahay kulli wax qabadka ay noo qabteen mahadnaqeeyay baan halkan ka gudbinaynaa horta Ilaahay baa mahad wax weyn waad qabateen halkani Saacadiin baa u ekaatay Saacadiin waa meesha Saylic ka hooseysay badda hareeryaha ka martay dhaartii badda hareeryaha ka martay biyaha hareeryaha ka maray Saacadiin baa u ekay guryahoo dhan xabadi kama joogan mid kasta madaxa soo jeeday waad ogeydeen gargaaro iyo aagani Lughaya ku soo jeeday ee heejadaheegana wixii arwaax ku go'day alxamdulillah kulli wixii alla maxay ahayd tiisa noqotaa ku dhintay gurmadkooguna maalin buu naga maqraa maalintii kale buu nala joogo 88 waxa weey daadku magaalada kala barbuu qaad dawladii xoogga weyn lahayd ee Soomaaliya gaadiidna nooga soo guray diyaaradana nooga iibin tani kulli xasuus dheer baan u leenahay waxa taa keenay waa Somaliland kan isku dhawna ee jaarkana meeshii dheeradii dawladdu naga joogtay ka dhawdahay weey waxa keenay gurmadka degdegga ah ee jawaab kasta leh taa kulli taabaan ka sheegayaa kulli way muuqataa wax qabadkiina iyo gurmadkiina waxa kale oo kulli wixii naga dhimanna inaan sheegano oo kulli sidaad horeba noogu qabateen aad noogu qabataan baan rajaynaynaa halkan waxa weeye dhakhtarkan uu burbursanaa iskoolkan uu burbursanaa dhakhtarku uu burbursanaa biyuhu way burbursanaa intiiba saaka xabaa laga qabtay dhakhtarka weyn dhakhtarka MCS ka masanadada shaqan jira dhakhtarka weyn qurbo joog baa hore noogu dhistay ina kaayana cidi furin ina kaan shaqaale loo sameeyay ina kaayo qurux badan bay maduufaan ku dhaco burburay kulli burburkiina sidiisii saaka loo soo celiyo wax qabadadan ku jira waxaan dawladda horana ugu baaqnaan horana ugu sheeganay saakana aanu sheeganaynaa in shaqaalihi ay naga dabarto dhakhtarkii weynaa in shaqaalihiisa ay naga dabarto noo furto waxaan kale oo sheeganaynaa waxa jira stationkii booliiska uu burbursan yahay saaka askartu joogtaa waxa weeye toban ma gaadho isna madaxu ka go'ay waa halkii labadii isdisha amba labadii wax isku geysata ama labadii gar isku yeelata lagu kala sharciga lagu kala eegi jiray lagu kala xiri jiray sida nabadgelyadii halka ay naga burbursan tahay taana waxaan rajaynaynaa in taa kala noogu dartaan
amarku ay bixiyeen labada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliya laana halka xarunta degmada Luqaya amarkay ku bixiyeen si degdeg oo dhaqso ugu badan looga soo jawaabay hay'adaha samafalka caalamiga ee ay siiyeen waxaa kaloo jira hay'adaha samafalka kale wax badan oo loo soo gurmaday dadka shacabka haday noqotay Awdal iyo Salal gobolka Awdal iyo Salal oo maartay Maroodi Jeexa waxaasina way noo soo gurmay waxa loo keenay jiingadaha loo keenay qoryaha loo keenay masaabiir baa loo keenay imika magaaladayni waxa weeye wada dhalaalaysa marka dad suuqa soo gasho wada dhalaalaysa burburka aad iyo aad baan uga soo kabanay xukuumadda waxaan ugu mahadnaqnaa waxay noo qabteen intii duufaanadu nagu dhaceen ka bacdi dhakhtarkii waana loo dhisay iskoolka waana loo dhisay wixii caawimo eelna lagu caawinay dhammaan hay'ad haday tahay xukuumad haday dhahayba way nagu caawiyeen waana u mahadnaqnaa madaxweynaha Soomaaliland waxaan ahay dhalinyarada ka tirsan degmada Luqaya gaar ahaan dhalinyarada ku xigta badda ayaan ahay anigoo ku hadlaya markaa afkii dhalinyarnimo iyo hadafkayga oo ah ka shaqaynta badda oo nahay waxa halkan imika aan dawladda ka codsanaynaa inay jirto shaqo la'aanta naga haysata dhinaca badda oo ay sabab u yihiin shabag la'aan yari makaanadii jiinada oo iyagana naga caddaynay maadaama ay soo martay xalifin aad u weyn oo duufaan ah oo soo martay bishii shanaad nagu soo dhacday sidaa awgeed waxa kale oo noo dheer baraf dhaliya wax la yiraahdo oo isna aanaa ku haysan kalluunkii haddaan badda ka soo saarano ama ku soo xoogsano ama gacanteeda kula soo baxno aanaa haysan meel aan ku kaysano sidaa awgeed dawladda waxaan ka codsanaa iyo xubnaha dhammaanba iyo dhammaan ummadda muslimiinta ee dhan inay na siiyaan oo ay noo keenaan qalab aan ku shaqaysano oo ay ka mid yihiin baraf dhaliye shabaag iyo makiinadii jinka waxaana leeyahay madaxweyne wad ogtahay magaaladan degmada Luqaya ee ka tirsan gobolka Awdal waxa soo martay duufaan aad u badan sida oo wax qabadyo badan waa noo sameysay waa ku maasantiin waxaana inaga codsanaa hawsa aan soo sheegay ay ka mid yihiin baraf dhaliyaasi inaad degdeg noogu keentaan assalaamu calaykum wa rahmatullahi waxaan ugu mahadnaqaynaa dawladda sharafta leh maxay hadana madaxweynaha iskoolkii waana noo dhisay maxay haydana dhakhtarkii lagu dhalay waana noo dhisay hay'aduhu si fiican bay wax noo siiyaan maxay haydana biyina imka hawlgarkiisina noogu jira marka wixii naga dhimanay kalena maxay haydana dad baabay oo burburay baanu nahay haday maxay haydana kinifiya tahay haday maxay haydana wasaaradda maxay haydana kalluumaysiga tahay haday tabeerta tahay haday maxay haydana xoolaha tahay intaba waan u baahanaa marka waan ugu mahadnaqaynaa intii ay noo qabteen inta kalena ha noo qabtaan hadoo Ilaahay qadaro insha Allah